muddo 2 sano kadib kooxda khawaarijta ah ayaa gacanta waxa u gashay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka iyo xogaha aan helayno ayaa sheegaya in aroortii hore ee saakay kooxda 3 jiho oo ka tirsan isla degmada Aadan Yabaal inay ka soo qaadeen weerar xilli ciidamada dawladda intooda badan iyo saraakiisha ciidanka militariga ee dawladda Soomaaliya ay hurdo ku jireen, taas oo sababtay in weerar 3 jiho ah oo geystay khasaare kala duwan in kooxdu ay ku qaado. Dagaalka oo la isku laabtay 3 jeer in ka badan ayaa la sheegay in ciidamada dawladda ay dib uga baxeen degmada isla markaana xilligan ay ku sugan yihiin banaanka degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Warar soo baxaya ayaa sheegaya saacadihii la soo dhaafay in labada dhinac uu soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hayeeshee saraakiisha ciidanka militariga uu ka mid yahay taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raagi ayaan ka hadlin dagaalkan ka dhacay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo waxa keenay in 3 jiho laga soo weeraro ciidanka dawladda iyo sababta keentay in ay heli waayaan xogta iyo macluumaadka ku saabsan weerarkan xoogana ee aroortii hore ee saaka lagu qaaday ciidamada oo la tilmaamayo in ay hurdo ku jireen xilliga weerarka uu dhacay. 2 sano ka hor ayay ahayd markii degmadaasi si buuxda gacanta dawladda Soomaaliya ay u soo gashay. Hayeeshee haddana 2 sano kadib galabta banaanka ay ka joogaan sida ay soo wariyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo saraakiil diiday magacooda iyo codkooda iyo muuqaalkooda in loo adeegsado qalabka warbaahinta. Maanta ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hadlay arrimaha ku saabsan deegaanada iyo degmooyinka gacanta dawladda ka maqan iyo kuwa gacanta ugu jira, waxaase barbar socotay oo saacado kadib la maqlay in gacanta dawladda ay ka baxday degmada Aadan Yabaal. Haddaba maxaa khaldan ayaad isleedahay oo keenaysa in degmooyinkii horey loo qabtay si fudud ay uga baxaan gacanta ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya? Qaybta hoose noogu reeb aragtidaada. sidoo kale muuqaalkeena sii gudbi, like share garee haddii aadan ka mid ahayn inta nagu xiran hadda ku soo biir boggeena oo follow soo dheh si aad u hesho macluumaadka iyo xogaha halkan aan ku baahino. sidoo kale waxaa naga xasuusinaa wixii arrintan ku soo kordho in aad noqon doontaan dadka ugu horeeya ee la socda.